nebi allow hadday kuu cagajugeeyaan kuu hanjabaan fasbir sabir baa la yidhi nebi allow sabir baa la yidhi fasbir sabran jamiilan sabir qurux badan sabir candhuuf waa lagugu tufi waa lagu tufay wejigaa lagaa dhirbaaxi waa lagu caayi waa beenaalihii baa lagu odhan waa saaxirkii baa lagu odhan dhib badan baa ku soo gaadhi sabir baa la yidhi yaa rasuul allah gaajada ku sabir xanuunka ku sabir faqriga ku sabir nebi allow sabir fasbir sabran jamiilan ibraahim waa kii dhintay isaga oo 2 sano jira ayuu dhintay inankiisii ibraahim markaasuu nebigu lilmeeyey markaasay asxaabtu ku nebi allow miyaad ooyeysaa markaasuu nebigu yidhi tadmacu alcayn ish way lilmaysaa wayaxzanu alqalb qalbiguna wuu murugoodaa walaa naquulu ilaa maa yurdii rabbanaa waxaan odhanaynaa am wax ilaahay raali gelinaya wa innaa lifiraaqika yaa ibraahiimu lamaxzunuun ibraahimow dhimashada aad naga dhimatay waan u murugoonaynaa nacam carruurtiisa cabdillaahi iyo qaasim iyo ibraahim iyo gebi yari bay ku dhinteen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطبتنا waxay ku saabsan tahay aayadda quraanka fasbir sabran jamiilan nabiga la hadlaya sallallahu alayhi wa sallam iyo ummadiis fasbir sabir baa la leeyahay adkayso dulqaado sabir qurux badan sabirka quruxda badan waa kaad ku adkaysanaysid ilaahay dartii eed qofna waxba aad u sheeganayn dad baa sabra laakiin wuu sheegasho badan yahay waxaa igu dhacay waxaa la yidhi dahaya walaalayaal ilaahay sabirka wuxuu kaga warramay qur'aanka in ka badan 9 meelood in ka badan ayuu ilaahay sabirka qur'aanka kaga warramay mar ilaahay wuxuu ammaanayaa dadka sabra mar ilaahay wuxuu inoo sheegayaa dadka sabra ajarka ay leeyihiin noloshan aan ku noolnahay gebigeegu waa nolol ibtila iyo imtixaan iska wadad waxay u baahan tahay noloshu sabir bay u baahantahay qofkii aan sabrayn nolosha wuu ka dhacayaa meel xun buu ku dambaynayaa sidaa awgeed ilaahay waxa uu leeyahay wastaciinuu biالصabri waالصalaaة waxaad gargaarsataan markay arrini qabsato sabirka iyo salaada xataa salaaddii waxaa laga horaysiiyey sabirkaa laga horaysiiyey maxaa yeelay salaada nafteedu waxay u baahan tahay sabir ayay u baahantahay sabirku wuu noocyaal badan yahay daacada ilaahay ood ku sabirtid macaasida ood ka sabirtid qadar wixii kugu dhaca ood ku sabirtid ilaahay nebigiisa waxa uu ku leeyahay rasuul allow fasbir sabran jamiilan sabir haddaba sabir qurux badan oo wanaagsan sabir waxaan ka hadlaynaa khudbaddeena sabirkii nebiga calayhi salaatu wassalaam nebiga dhinac alla dhinacaad ka eegtid wuxuu ahaa cadiiman nin weyn buu ahaa
nin ilaahay uu dhisay ilaahay uu wanaajiyey ayuu ahaa dhinac alla dhinacaad ka eegtid nebiga kaana cadiiman nebiga sabirkiisu siduu ahaa calayhi salaatu wassalaam waxaan wala ognahay nebigu aabbihii ma arag isagoo caloosha hooyadii ku jira oon dhalan ayuu aabbihii dhintay markuu nebigu uu dhashay oo lix jir uu gaadhay hooyadii baa dhimatay iyada oo dariiq ku jirtay dhimatay hooyadii iyo aabbihii wax hantiya oo uga tageeni oo dhaxaala ma jiro wax walaala oo la dhashay ma jiro nebigu keligii buu ahaa calayhi salaatu wassalaam waxaa soo koriyey awowgii cabdilmuطalib markuu 2 sano uu koriyey awowgiina uu dhintay nebigu isaga oo 8 jira aabba male hooye male awow male walaal male hanti ma haysto nebigu wuxuu ku wareegay kafaaladii iyo korintii adeerkii abu aalib wuxuu ahaa oday hanti yar waxaysigiisu u yaraa uuna ciyaal badnaa nebiga ku soo biiray calayhi salaatu wassalaam isagoo 9 jira nebigu sala allahu calayhi wasalam intaa adeerkii uu la joogay 9 jir isaga oo ah wuxuu bilaabay inuu shaqeeyo nebi maxamed oo muxuu ka shaqaynayey adhi jiruu ahaa adhigu jirayey nebigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wassalaam markii la weydiiyey la yidhi rasuul allow ma adhigaad soo jirtay nebigu waxa uu yidhi ilaahay nebi uu soo diray ma jiro ilaa adhiguu soo jiraa adhi jiruhu waa dhib badan yahay qofka adhi jiruhu dee ridanaa meesha ka dhacdeed u kala baahayaan way kala socdaan way kala ninka geeljiruhu geedaha umuu ku sii dayna uu iska nasan geedka hoostiisu iska fadhiisan adhiguu yaacayaa sabirka nebiga la barayaa iyo adkaysiga adhi jiruhu ka sabir badan yahay geeljiruhu uu qooqa meesha umuu fadhiyaayo uu fikiri xoolaha badanna wuu maaragtay laakiin adhi jiruhu naxariis yar baa ku jirta oo ridaa yare boodboodaysa iyo waxaasuu arkayaa kolba uu soo celinayaa wuu adkaysanayaa wuu la qoslayaa midba nebi walba oo ilaahay uu soo diro adhi jiru ka dhigi jiray nebi moxamed markii la weydiiyey adhiga waan soo jiray buu yidhi ree maka ayaan qadaadiic yar ugu jirayay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam lacag yar qadaadiica isiin jiray buu yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam isaga oo 12 jir ayuu bilaabay nebigu ganacsi wax iibiyo oo wax soo iibiyo oo shaqeeyo idan nebigu waa ku sabray agoonnimadii waxba inuuna haysan uu ku sabray calayhi salaatu wassalaam miskiinka sabirka badan ee adkaysiga badan een waxba haysan laakiin sharafta leh magaca leh ayuu ilaahay dadka ka dhex doortay allahu aclamu xayثu yajcalu risaalatah nebi maxamed ilaahay baa doortay rasuul allah ku doortaa la yidhi rasuulkii ilaahay baad ilaahay baa ku jeclaaday laakiin waddadan lagu doortay waa waddo adag iyaduna lacag laguma siinayo hanti laguma siinayo risaalo culus baa lagu dhiibayaa rasuul allow aayadihii ugu horeeyay nebiga ku soo degay waxaa ka mid ahaa yaa ayuha almudathiru qum faandir maxaa ku jiray walirabbika fasbir nebi allow sabir yeelo oo ilaahay dartii u sabir ayaa nebiga lagu yidhi dariiqan lagu doortay eed maraysid waa dariiq adag qodox badan yahay imise nebi baa lagu soo dilay dariiqan imise nebi baa lagu qowracay zakariye nebi zakariye
way qowraceen qoortay ka gooyeen wiilkiisii yaxye way dileen imse nebi baa lagu dilay yahuuddu maalin quraata 70 nebi bay deldeleen maalin quraat 70 nebi ayay deldeleen haddaba nebiga waxaa lagu leeyahay rasuul allah ilaahay baa ku doortay dariiqan aad maraysidna waa dariiq adag ee lagu doortay walirabbika fasbir sabran jamiilan sabir qurux badan la imo rasuul allah haddaad aragtid baatilkii oo qooqay oo kibray fasbir sabir baa layidhi haddaad aragtid dadkii oo diinta ugu yeedhaysid oo sanka taagaya nebi allow fasbir haddaad aragtid baa la yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam adiga oo miskiina oo faqiira alam yajidka yatiiman faaawaa wawajadaka caa'ilan faaghnaa haddii hantidaadu ay yaraato waxaysigaagu uu yaraado nebi allow fasbir sabir baa la yidhi hadduu cadowgu kugu bato ay iskugu kaa yimaadaan iskugu kaa yeedhaan yahuud iyo nasaaro iyo quraysh iyo munaafiqiintii iyo badowdii madiine ag deganayd waxaas oo dhan hadday iskugu kaa yimaadaan nebi allow fasbir sabir baa la yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam nebi allow hadday kuu cagajugeeyaan kuu hanjabaan fasbir sabir baa la yidhi nebi allow dacwadan ku sabir oo yeedhitaanka dadka aad ugu yeedhaysid ku sabir waxaad kalood ku sabirtaa dadku hadday ku beeniyaan ku diidaan ku sabir nebi allow sabir baa la yidhi fasbir sabran jamiilan sabir qurux badan sabir candhuuf waa lagugu tufi waa lagu tufay wejigaa lagaa dhirbaaxi waa lagu caayi waa beenaalihii baa lagu odhan waa saaxirkii baa lagu odhan dhib badan baa ku soo gaadhi sabir baa la yidhi yaa rasuul allah weliba waxaad ku sabirtaa mushkilaadka noloshu ay wadato gaajada ku sabir xanuunka ku sabir faqriga ku sabir nebi allow sabir fasbir sabran jamiilan asxaabtaada haddii la laayo ehelkaaga haddii la laayo nebi allow fasbir sabir baa la yidhi haddii waddanka lagaa saaro oo lagu musaafiriyo fasbir sabir baa la yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam aayadda qur'aanka ayuu qaatay fasbir sabran jamiilan wuxuu ahaa nebigu miithaalan lisabr tusaale fiican oo lagu daydo ayuu ahaa calayhi salaatu wassalaam sabirkiis gabadhiisii zaynab baa dhimatay waa gabadhuu jeclaa carruurtiisu inamadu yaraan bay ku wala dhinteen ibraahim waa kii dhintay isaga oo 2 sano jira ayuu dhintay inankiisii ibraahim markaasuu nebigu lilmeeyey markaasay asxaabtu ku nebi allow miyaad ooyeysaa markaasuu nebigu yidhi tadmacu lcayn ish way lilmaysaa wayaxzanu lqalb qalbuna wuu murugoodaa walaa naquulu ilaa maa yurdii rabbana waxaan odhanaynaa wax ilaahay raali gelinaya wa innaa lifiraaqika yaa ibraahiimu lamaxzunuun ibraahimow dhimashada aad naga dhimatay waan u murugoonaynaa nacam carruurtiisa cabdillaahi iyo qaasim iyo ibraahim iyo gebi yari bay ku dhinteen 4 hablood baa nebiga calayhi salaatu wassalaam aqalka u jooga gabadhiisii zaynab baa dhimatay nebigu sala allahu calayhi wasalam hablihiisa aad buu u jeclaa gabadhiisii zaynab buu soo maydhay wuu kafanay wuu ku tukaday
وآسي وصون نقضي إسقو قسلي صلى الله عليه وسلم فاصبر صبرا جميلا مرضا بواحد ما تجبديسي رقية أياد مت وميري وكفني وآسي وصون نقضي إسقو قسلي النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر صبرا جميلا waxaa dhimatay gabadhiisii saddexaad ummu kalthum nabigu uu maydhay uu kafanay uu aasay uu soo noqday isaga oo qoslaya fasbir sabran jamiilan nabigu sallallahu alayhi wa sallam gabadhiisii Faatima ayaa ka dambaysay 6 bilood bay ka dambaysay alayhi salaatu wassalaam nabigu Makka wuxuu ka deganaa guri yar oo gabigiisa dhooba laga sameeyay dhoobu ka sameysnaa guriga nabigu marmariya jaajuuriya ma ahayn bir dhoobu ahaa markuu soo galo madaxiisu wuxuu taabanayay saqafka markuu seexdo lugna wuxuu taabsiinayay gidaarna lugna madaxiisa ayuu gidaarna madaxiisa gidaarna wuxuu taabsiinayay lugihiisa alayhi salaatu wassalaam فاصبر صبرا جميلا نبيو صحابتي بقاروي ما دينو حيران يا رسول الله ما انت عنتما نعنين ومركي خندق اللقذي مدأوي مدأ وحي رسول الله ما انت قاتشو وان استاقي كر لا وان ليعيا على شو دغخ اسكا خيري اسكو جيجيو وان قاتشو نبيو go-iisii buu kor iskaga qaado waaba nabi maxamed oo laba dhagax caloosha iskaga xidhay gaajo awgeed alayhi salaatu wassalaam uu gaajooday wuxuu cunu waayay nabigu timir buu waayay haadiyar iyo qamadin yar ayuu waayay nabigu alayhi salaatu wassalaam fasbir nabigu wuxuu waayay go oo dhaxanta iskaga dhigo ka huwado ciidu seexanay mararka qaarkood xasiir buu ku seexanay caw markaasay ku sawirmaysay intuu go iskaga dhiga uu waayay ay cawdii ku sawirmaysay jirkiisa nabiga alayhi salaatu wassalaam nabiga waa la xiray xabsin boortii Abu Talib labadii boorood shacabkii ayaa lagu xiray isaga iyo wax alla wixii taageersanaa ee qaraabadiisa ahaa nabiga alayhi salaatu wassalaam 3 sano ayuu xaga ku jiray oo loo diiday cunto iyo cabis ilaa ay caleenta geedka ay cuneen oo haraga ay cuneen oo dad badan ku dhinteen meesh 3 sano xaga ku jiray nabiga alayhi salaatu wassalaam 3 sanawaat ayuu ku jiray maalinku ka soo baxay isagoo oo dhooban buu nabigu ka soo baxay alayhi salaatu wassalaam maalinkaas waxaa dhintay adeerkii soo koriyay difaacayay Abu Talib ayaa dhintay oo waliba gaalnimo ku dhintay nabigu aad iyo aad buu u murugooday Quraysh baa hanjabays Quraysh waxay kaga joogsan lahaayeen mar hore dili lahaayeen odayga adeerkii isaga oo taa u murugaysan nabigu ayaa isla sanadkan waxaa dhintay haweenaydiisii caaqilada ahayd caqliga badneed Khadiija radiyallahu anha ee hablahan iyo u dhash ayaa dhimatay ee maalkayga ku difaacays ee mar walba nabiga alayhi salaatu wassalaam sabirsiinays markuu waxyigu ku soo degay nabigu isaga oo murugaysan oo qarqaraya ayuu u yimid markaasay ku tiri laa yukhzika Allahu abadan wallahi ilaahay kuma hoojinayo istaji hanixin innaka la tasilu rahim qarabadaad xidhiidhisaa jaarkaadu xaqabataa qofka dhibaataysan baad u kaalmaysaa qofka safarka musaafirka aad la qabataa ha murugoonin ilaahay kuma hoojinayo iskiji hanti bay lahayd xoolay lahayd nabiga way isku agtaagi jirtay alayhi salaatu wassalaam ku difaaci jirtay sanadkaas ay dhimatay
sanadkaasuu nebigu dhaqaaqo wuxuu siidhi baree daa'if baa kugu dhow dade xagganay dad joogaan maka haddee diiday baree daa'if u tag buu is yidhi nebigu reer daa'if waxay sii diyaariyeen dadkii waalwaalnaa iyo dumarkii iyo ciyaalkii dhagaax baa la sii diyaariyey nebiga intii la soo dhoweyn lahaa ayaa dhagax lagaga hortegay lugihiisii sharafta lahaa ayaa laga dhiijiyey calayhi salaatu wassalaam isagoo ordaya nebi maxamed oo ordaya maxaad u malayn iyo saxaabigii la socday waxay ka galeen beer nebi maxamed oo dhagax lagu eryanayo dadkii waalwaalnaa iyo ciyaalkii ay eryanayaan maxaad u malayn oo shiidayaan wuu sabray nebigu fasbir sabran jamiilan axibatii fi illaah caamkaasi sanadkaasi waxaa loo bixiyey caamulxusni sanadkii murugta 3 sano u xidhnaa wuu ka soo baxay waxaa dhimatay haweenaydiisii adeerkii baa dhintay reer daa'if ayaa nebiga soo shiiday nebi allah waxaa la yidhi may maalimahaasuu ilaahay qaado alisraa walmicraaj ilaahay baa casuumay niyaddaa dib loogu soo dhisay nebi allow ha murugoon walirabbika fasbir fasbir sabran jamiilan gaaladiibaa u tashatay waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka han dilno han xidhno waxaa laga doodayaa wax kale maaha han dilno han xidhno han musaafirinno wayamkuruun wayamkuru allahu wallahu khayru lmaakiriin qorshay dhigayaan ilaahayna qorshu dhigayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa loo tashaday in la dilo dhalinyartii xoogga badnayd 10 wiil baa la isku yeedho seefaa loo dhiibay sun loo mariyo o la yidhi mar unku dhufta maxamed dhiiggiisu qabaa'ilkaha ku baaho nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaad garanaysaan inuu habeen hijrooday isaga iyo abubakar sadiiq ay god ku dhunteen isaga oo rafaadsan nebigu oo dariiqii madiine loo marayay mahee dariiq kale u maray dariiqii madiina dariiq kale u maray si aan loo helin isaga oo waayeela gaajoonaya rafaadsan cabsanaya la eryanayo gurigiisii ka soo baxsaday hablihiisii ka soo baxsaday ayuu nebigu hijroonayaa sala allahu calayhi wasalam markuu kor u soo eegayaa markaasuu leeyahay makaay dhulka ilaahay adaan kugu jecelahay laakiin waa la isaaray maxaan sameeyaa in ka badan 500 oo kiiloomitir ayuu nebigu lugeeyey sala allahu calayhi wasalam waa dhul saxraaya lama degaana baad iyo biyo midna ma helaysid dhulkaasuu nebigu lugeeyey dagaalkii uxud buu galay madiine markuu tegee la soo dhoweeyey dagaalkii uxud 70 asxaabtiisiiya ragguu ugu jeclaa oo adeerkii ku jiro xamza asadullah ayaa la googooyey oo la dilay oo nebigu arkay calayhi salaatu wasalam waa adeerkii xamza oo la dooxay oo gacmaha laga gooyey anas ibnu nadr oo la googooyey asxaabtii ugu jeclaa ee soo difaacay nebiga ayuu hortiisa ku arkay 70 saxaabi oo la googooyey fasbir sabran jamiilan nebigu sala allahu calayhi wasalam wuu sabir badnaa ilaahay baa ku yidhi fasbir sabran jamiilan nebi allo adkayso sabir qurux badan yeelo ayaa lagu yidhi noloshani waa sabir ba u baahanta nebigu sala allahu calayhi wasalam isaga oo madiina jooga oo asxaabtiisa dhex socda ayuu nin reer miyi oo badawa oo qallafsan nebiga go' ku soo jiiday yaa muxamed actinaa min maali illaahi laa min maalik oo nebigu qoortu ay casaatay asxaabtu markay eegeen waa go' uu ku soo jiiday nebiga muxamedow xoolahan keen nasii xoolaha adigu ma lihide ilaahay baa le keen xoolaha oo nebigu intuu eegu qoslay sala allahu calayhi wasalam asxaabtu way xanaaqeen inay wax gaarsiiyaan bay dooneen nebigu wuxuu daaya actuuhu min maali illaah war maalka ilaahay wax ka siiya buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam fasbir sabran jamiilan nebiga waxaa soo marayay gurigiisa bil iyo 2 bilood iyo
inaan cunto lagu shidin cunto aan lagu karin oo lagu bislayn wax la shitaa la waayey waa cidlo wuxuu tegayaa aqalkii haweenadiisa aw cunto ma haysaan may yaa rasuul allah waxba ma hayno kii kaluu tegayay cunto ma haysaan may yaa rasuul allah mid saxaabtiisa ka mida ayuu u tegayay abu ayuub alansaari oo nebiga wax u dhigi jiray calayhi salaatu wasalaam nacam noloshu waxay u baahan tahay sabir fasbir sabran jamiilan hadduu wiilkaagu uu dhintay sabir nebi maxamed baa awlaaddiisii waa dhinteen maad ka fiican tahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam haddaad shaqo weydid sabir fasbir sabran jamiilan haddaad xanuunsatid sabir ama abbaha ama hooyada ay xanuunsato fasbir sabran jamiilan axibatii fi illaah noloshu waxay u baahan tahay sabir xoog badan taasay khudbaddeenu ku saabsan tahay wajazaakum allahu khayran wasala allahuma calaa sayidina moxamed